waxaa maanta si rasmi ah loo dhagaxdhigay dhismaha jidka isku xidhi doona magaalooyinka Baki iyo Boorama hay'adda caalamiga ee Save the Children oo ay weheliyaan wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Somaliland hay'adda gaadiidka iyo horumarinta jidadka hay'adda horumarinta wadooyinka Somaliland ayaa waxay maanta si wada jir ah u dhagax dhigeen dhismaha jidka isku xidhi doona magaalooyinka Baki iyo Boorama wadadani oo wax weyn ka tari doonta isku socodka dadka gaadiidka ganacsiga iyo khudaarta u kala gooshta labadaasi deegaan mashruucanina waxa maalgeliyay sanduuqa horumarinta Afrika oo lacagta soo mariyay urur goboleedka IGAD mashruucani oo fulin doonto hay'adda Save the Children oo kaashanaysa hay'adda horumarinta wadooyinka Somaliland waxana ka soo qayb galay furitaankii munaasabadani wasiir ku-xigeenno agaasimayaal xildhibaano ka kala socda golayaasha wakiilada iyo deegaanka mas'uuliyiinta degmooyinka Baki iyo Boorama maamulka gobolka Awdal odayaal waxgarad aqoonyahan iyo qaybaha bulshada Boorama waxana ugu horeyntii halkaasi ka hadlay isla markaana faahfaahiyay ujeedada mashaariicda hay'adani fulisay Ridwaan Maxamed Ibraahim oo ka mid ah saraakiisha hay'adda Save the Children mashruucan qaybo kala duwan buu ka fulinayaa dhammaanba badi gobolada Somaliland waxaan sir weydiinaynaa markaa gobolka Awdal muxuu qayb ahaan uga helay waxaan ku tilmaami karaa gobolka Awdal inuu ka helay qayb libaax waayo gobolka Awdal waxa laga fulinayaa oo mashruucani uu ka kaabayaa 3 ceel hal ballay oo weyn waxa uu dhisay dib u habeyn ballaaran oo ku sameeyay sayladda xoolaha ee Boorama iyo sidoo kale xarunta karantiilka xoolaha waxyaalaha uu ka qabtay gobolkan waxa ka mid ah mashruucan shaybaad qalabaysan oo ballaaran ayuu ka fuliyay sidoo kale waxa qayb ka ah waxa uu gobolkan qayb ahaan u helay wadadan aynu u taaganahay meesha ee Boorama to Baki isku xidhi doonta sidoo kale isaguna waxa halkaasi ka hadlay Cabdinaasir Cali Sahal oo ah madaxa hay'adda Save the Children ee Somaliland oo isaguna halkaasi faahfaahin guud ka bixiyay dhismaha jidkan isku xidhi doona Baki iyo Boorama maanta runtii waxa sharaf noo ah inaynu halkan u wada joogno bilowga jidka muhiimka ah ee lafdhabarka u ah gobolkan Awdal iyo guud ahaan Somaliland ee isku xidhi doona magaalada Boorama iyo magaalada Baki mashruucani qayb wuxuu ka yahay mashruuc ballaaran oo ka kooban xanaanada xoolaha biyaha iyo jidadka wadadan marka dhererkeedu waxa weeye 330 kilomitir waa caratuul waxa weeyaan qaybtan imika aynu sameeynaa laakiin waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo inay iska kaashanayaan mashruuca Save Children ay fulinayso iyo hay'adda wadooyinka ee Somaliland oo iyaduna qayb weyn ka qaadanaysa labadooda la isku darayna kuma filno oo hawl badan bay wadadan u baahan tahay shaqo badan bay u baahan tahay marka waxaan ku dhiirigelinayaa dhammaan maamulka gobolka degmada iyo mas'uuliyiinta dawladda in dhexda loo xidho sidii wadadan loo dhameystiri lahaa wixii intaasi ka dambeeyayna waxa hadalka iska daba qaatay maareeyaha hay'adda wadooyinka Somaliland maayirka degmada Baki maayir ku-xigeenka degmada Boorama Salaadiin Cuqaal barasaabka gobolka Awdal iyo xildhibaan Cali waxayna sheegeen waxa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland oo amar ku bixiyay sidii Baki iyo ha isku xidhmi lahaayeen Boorama hay'adda أنا هاي شغال قبنا سأقول لك واحد نقول نسا مركب وطلع يجو هاف مليون وقت كومن لو شقيوي هاوش شيء شغال على كاتلا قف كساو دريمي كرا مركب وكالة دهور مرته ودين كوا حكوا قان إن أنت كران كيجا إن شاء الله تعالى هاي شغال على سيد الدكتور لغاية سنة أنا وقبل هان وحال الخير كي سو جوري إنك هكذا إلهي هكذا أرتو حبك هكذا منه xoog iyo xoolaba wixii aanu kari karro meesha waanu galeynaa waxaynu aad ugu mahadnaqaynaa Save the Children iyo wasaaradda gaadiidka iyo hay'adda wadooyinka oo intuba iyo wasaaradda xanaanada xoolaha oo intuba soo qalb qaatay maanta inay hawsha wada istaaraan sidoo kale iyaguna waxa halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda biyaha Somaliland wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha Somaliland anigu waxaan doonayaa inaan la hadlo bulshada reer Baki iyo Boorama oo ay reer Baki waliba ka xidhan yihiin wadanka intiisa kale iyaga waxa la gudboon inay hormoodka noqdaan oo ay hadduu neef hayo iyo hadduu khudrad hayo iyo hadduu macdan hayo dahabkiina waa lagu jiraa
ay kaga qayb qaataan si waddadaasi ay noogu suurto gasho runtii waa waddo muhiima sida hore looga dhawaajiyay waddadan waxay isku xiri doontaa Boorame iyo Baki waa waddo aad u adag waddadan anu waan maray runtii waddo aad u adag baa laakiin waddada ceergaababa waa waddo waxay aad u adag laakiin waa lagu dhiirsaday waa la dhameeyay tan dadun baa u kacay waana la dhamayn doonaa madaxweynuhu amar buu ku bixiyay geestooda iyaguna waxaa hadalka iska daba qaatay wasiirada wasaaradaha maalgashiga wasiirka wasaaradda horumarinta qorshaynta wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland waddadaas aad bay muhiim ugu tahay gobolkan waayo khudaarta inta badan waxay ka yimaadaan waa Baki boqolkiiba 90 waxay ka yimaadaan waa Baki marka waddadan uu halbowle ayay u tahay gobolkan waxa waddadan iska kaashan doona oo dhisi doona dawladda Soomaaliland iyo hay'adda Save the Children sidoo kale waxaan markasta mahadnaqa rabbi ka soo u mahadnaqaynaa dawladda Soomaaliland ee hormuud ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo runtii dadaal dheer u gashay si allaale iyo sidii uu ku hirgeli lahaa ciidankii su'aashu waxay tahay marka la soo dadaal adduunyadii la hadal dawladdii soo dhaqaaqday maxaa u dan ah dadka reer Awdal gaar ahaan degmada Baki waa dhowr qodob oo muhiima waa marka koobaad waa in dadkaasi ay ka qayb qaataan waa inay hanti waxay hayaan awoodooda kolba ay bixiyaan waa inay aqbalaan dariiqa waxa laga dhigi doonaa 15 mitir oo ballaca buu noqon doonaa 20 kun wuxuu noqon doonaa labada goobood ee ama baarkinka loo yaqaan marka 20 mitir buu noqon doonaa 20 ka mitir dhammaan beeralayda dhullayda hantilayda waxaan u sheegaynaa dariiqaas lama weecinayo wuxuu mari doonaa goob kasta oo aqoon-yahanka iyo injineerada qaranka ka socda ay mariyaan ayuu mari doonaa waxaan leenahay markaasi naftiina khura walaalihiina oo aqbala mustaqbalkiina baa la dhisayaa taas waa mid ka qayb qaata aad iyo aad horta waxaan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha waayo waxa weeyaan 2 kiiloomitir baan kolba yara dhigi jiray 1 kiiloomitir go'aan ku gaaray waxa weeyaan Baki iyo Boorame isku xidhantaan raba marka waxa laga yaabaa in waqti qaadato waxaan oran lahaa dadkeena dibad iyo gudaba annagu waan ku dadaalaynaa dawlad ahaan waxa la wixii moogtahay taakulayn hel qaban karo laakiin se moogtahay dhaqankii aan ku bilownay wax yaana halkii kaga tagin qaybteena aan ka qaadano dibad iyo gudaba haddaanu nahay xukuumadda uu hogaaminayo mudane Muuse Biixi Cabdi waniga walaalada iyo wasiirada ay nugula jiraan wax maalin walba markaan la kulmo madaxweynuhu waxa wadadii Baki bala bilaabay markaas madaxweyne markaas yiraahdo wuxuu nudgeeyay bal horta iga bilaaba wadada waxa ka go'an madaxweynaha inuu dhameystiro muddo gaaban lagu dhameeyo ma aha wax badan waxa loo baahan yahay iskaashigaas ka socda xagga xukuumadda xagga hay'adaha maalgashiga bixiyay hadday noqoto bulshooyinka reer Boorame haddaad bacmud disateen 16 kilomitir waxa ma aha jeebkun gacanta la geliyo waxaan kaloo halkan ka xusayaa in miisaaniyadda ay lacag ugu jirtay sanadkii 2020ka oo lacagtii loo hayo iyo sanadka soo socda 23ka iyaduna ay lacag ugu jirto miisaaniyad wadadaas Baki Boorame ugu dambeyntii waxaan halkan uga mahadcelinayaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay iyo kambaniga dhisaya ugu dambeyntiina waxa si wada jira loo dhagax dhigay dhismaha jidka isku xiri doona Baki iyo Boorame